magaalada Dar es Salaam ee caasimadda dalka Tansaaniya waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay Suldaan Salmaan Axmed Maxamed oo ka mid ah madax dhaqameedka firfircoon ee Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay safaro kala duwan ku marayay dalal ka mid ah Afrika. xubno ka mid ah jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Tansaaniya ayaa suldaanka si diiran ugu qaabilay kuna soo dhaweeyay gegada diyaaradaha ee Dar es Salaam oo uu maanta gaadhay. Suldaan Salmaan oo inta badan ka shaqeeya arrimaha qadiyadda iyo isku xidhka jaaliyadda Soomaaliland ayaa waxaa la filayaa inuu kulamo kala duwan la qaato jaaliyadda Soomaaliland ee dalkaas ku nool oo uu la wadaagi doono isxogwaraysi la xidhiidha xaaladda dalka Soomaaliland iyo guulaha Soomaaliland gaadhay sanadkan imika. dalka Tansaaniya ayaa hormuud u ah kobaca dhaqaalaha bariga Afrika waxaana ku nool boqolaal kun oo muwaadiniin reer Soomaaliland ah oo ku leh ganacsiyada ugu waaweyn. Suldaan Salmaan ayaa muddooyinkii u dambeeyay socdaal ku marayay qaar ka mid ah dalalka bariga Afrika waxaanu kulamo midho dhal ah la qaatay jaaliyadaha Soomaaliland ee ku nool dalkaasi.